بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله قيمها بدن كسر دواد أرداجين. سيدا مهم كوتهاي إن التقارنه هبك الله وحسيدو كل يدنا مهمة إن التقارنه وحاد كهذا يسيء هذا لذا الاستعمال يسوع. فرسمة هذا الكو وعلم الدين أمان تأدوينه سفي عنه براروكسين هي إسلام مركانا لقولكتو جامع ذا قار لقنا قريب وجاك للدون. waxaynu isla eegaynaa mawduuceenan maanta qaacidooyin shan ah kuwaas oo ka caawinaya inaad horumariso qaab hadalkaaga isla markaana aad noqoto qof dadka kala xiiseeyaan hadalkiisa. qaacidada koowaad barashada dhaqamada iyo saqaafadaha kala duwan. Si aad u noqoto qof hadal yaqaan waa inaad taqaanaa dhaqamada bulshooyinka. ummad kastaaba waxay u taqaano ereyo xun oo meel ka dhac ah iyo waxay ka aaminsan tahay inuu yahay hadal wanaagsan oo lagu qanci karo. Tani waxay ka caawinaysaa marka aad wada sheekaysataan qof aad kala dhaqan tihiin inaad ilaashato qaab hadalkaaga wanaagsan. Sidoo kale waxay ka caawinaysaa marka aad qof la doodayso in ereyadaadu noqdaan kuwo miisaaman maadaama aad tahay qof haya xog iyo macluumaad kala gedisan. qaacidada labaad isku miisaamida hadal wanaaga iyo gudbinta fariinta. dad badan ayaa ka gaabsada inay u cadeeyaan qofka waxay ka rabaan iyo fariintooda iyagoo ka cabsi qaba in laga aamino kuwa aan hadalka aqoon. sidoo kale waxa jira dad si ay ujeedadooda u cadeeyaan dadka kale kula hadla hadallo xun oo dhaawaca laakiin xaqiiqadu waxay tahay in labadaas noocba ay qaldan yihiin. adigoo ilaalinaya qaab hadalkaaga ayaad gudbin kartaa fariintaada waliba si miisaaman oo aan qofka kale dareenkiisa waxba yeelayn. si aynu qodobkan u sii cadeyno ka soo qaad in maamulahaaga shaqadu uu ka codsaday inaad maalinka jimcaha shaqaysid hawlo isaga u yaalana aad ka qabatid maadaama uu isagu leeyahay hawlo kale adiguna ma awoodid maadaama aad maalinkaas waqti la qaadato qoyskaaga. haddaba xaaladaas adag maxaa kula gudboon inaad tidhaahdid adigoo si wanaagsan ula hadlaya maamulahaaga sidoo kalena cadeynaya ujeedadaada. habka ugu habboon waxa weeye inaad tidhaahdid mudane waad mahadsan tahay maadaama aad ii aragtid qof u qalma inuu qabto hawlahaaga gaarka ah laakiin maalinkaas aad ii baahatay waxaan waqti la qaadanayaa qoyskayga. toddobaadka dambe haddii ay macquul tahay waan kuu fulin doonaa hawlahaaga. sidaas haddii aad u hadashid waa ballan in qof kasta ku qancayo hadalkaaga. qaacidada saddexaad ka fakar waxaad odhanayso ka hor inta aanad odhanin. ha noqonin qof ku hadla wax kasta oo maskaxdiisa ku soo dhaca. si degan ula hadal ka fiirso sida uu u fahmi karo qofka kale hadalkaaga. shaandhee aadna u rogrog ka hor inta aan ereyadu afkaaga soo dhaafin. qaacidada afraad dooro ereyadaada. mar kasta waa inaad ka taxadirtaa ereyadaada sida ay dadka kale u fahmi karaan. waa inaad ku dadaashaa inaad u isticmaasho erey kasta meesha uu ku habboon yahay. haddii aynu soo dhaweyno fahamka qodobkan ka soo qaad inaad maamulo ka tahay meherad isla markaana uu jiro mid ka mid ah shaqaalaha oo markasta ka habsaama gudashada shaqadiisa. haddaba haddii aad qofkaas canaanatid waxa hubaala inuu istifaacid gelayo xaaladaasna aan waxba iska bedelaynin. haddaba habka ugu saxsan waxa weeye inaad dhahdid maalmahan habsan badan ayaa ku jira shaqadaada ma waxa jira dhib ku haysta ama cadaadis aanan ogeyn si aan kaaga caawino. intaas kadib qofku wuxuu yaqiinsanayaa in la dareensan yahay gaabiskiisa isla markaana aanay xaaladiisu sidan ku sii soconayn ee ay muhiim tahay inuu wax ka bedelo. ku dadaal mar kasta inaad isticmaasho qaab hadalka ugu saxsan. waxaana qodobkan soo koobaysa mahmaahda Soomaaliyeed ee tidhaahda hadal nin si u yidhi ninna si u qaaday. qaacidada shanaad ku ammaan dadka wixii wanaagsan ee ay sameeyaan. marka qof sameeyo arrin wanaagsan ha ahaado saaxiibka walaalka ama ilmahaaga yar ee aad dhashay adna aad ku ammaanto hadalkaas waxaad noqonaysaa mid hadalkiisa dadku jeclaystaan. mar kasta ku dadaal inaad diiradda saarto dadka qaybahooda wanaagsan. bini'aadamku way neceb yihiin dhaliisha. haddii aad noqoto qof mar kasta dadka kala dhaliila waxaad noqonaysaa mid ay dadku dhibsadaan hadalkiisa xitaa haddii aad hadal yaqaan tahay. gabagabada mawduuceenan hadalka wanaagsani waa tamar positive ah. haddii aad taqaano sida ugu wanaagsan ee loo hadlo
waqtiga ku habboon ee la hadlo iyo ereyada saxda ah ee lagu hadlo. waxaad noqonaysaa mid hantiyo qof kasta qalbigiisa, dadkuna ku farxaan la sheekaysigiisa. haddaba waxaan rajaynayaa mawduuceennan aynu maanta ka hadalnay inuu wuxuun idinka anfici doono. aad ba ugu mahadsantihiin ku xidhnaanshaha kanaalka iyo barnaamijyada aanu soo gelino. inta ka horeysa barnaamijka kan xiga waxaan idinkaga tegaya. salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.